أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ولاليال، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام تاسكدب إلهي بمهضله تبارك وتعالى إنه قدري إنان مانتا ديب أكلانو سيان وحوغا شاقنو أريما دانتينو أي كجرتو مادام أن هيدا المسلمين وصوماليا وجيسكا أما بريغا أفريكا كنول هدو إلهي على تبارك وتعالى ما توحن كهدي دونا مسألة بعد شن عشاء أفر عشاء دبدينا مسألة مهمة وجبوتي دور شدة كو صابسن إيان كهدي دونا هدو إلهي على تبارك وتعالى أنت إيمان ما توحن جعلها مركي لباد إنا كسو النقضو موضوع كو صابسن لسعانات دقالك لحاد كسعودة إياه قعنت كو هيا حلقا نبضا سؤاشا ما نسكو يديننا سيدقن وعلمي وسياسي لمبر 1 waxaan rabaa dadka aan isdhagaysanayno inay in yar ku guulaystaan caatifadooda inay meel dhigaan oo caqligooga ay shaqaysiiyaan. waxaan kale oon rabaa in aan iska dayno kelmadda ah qofka ani ila jirin wuu iga soo horjeedaa oon isticmaalno dhammaanteen inaan la jirno xaqa meeshuu xaqu maanta aadana inaan aadi doono. talabaadii waa taa weeye. arrinta saddexaad ee muhiimka ah waxa weeye in aan ujeeddadeennu ay noqoto hal ujeeddo oo quraatee waxa loo yaqaano al-islaax, dadkan inay heshiiyaan. والصلح خير إلهي بايلي هشيسكو وخير، يعني كلمة الصلح ومبتدأ في عربية، خيرنا وخبر وحرر ومن أدوات الحصر. خير مبجي ربا الدونكن إلا مو يعني صلحنا. إلهي وحو قرآنك إنه وشاقي لا خير في كثير من نجواهم ضدك شرشرة يأدونك مؤتمرات كقبنية وخير أو كجراي مجرو إلا مو يعني من أمر بصدقة أو إصلاح بين الناس. ضد مارتي من صدقة أمريا أما من ضد كبحدو ده هجاجينيا أو صوبينيا أو خلق يسكسور دوينيا إسفهسينيا كاسب إلهي تبارك وتعالى وكسر يبشرك فاسد كورنا وحويا ولا ليال إلهي مركو مسلمين تكور رمينا ولاليهين بودهان معها ضد كسبهم إنما المؤمنون إخوة مركو يري وحرايحيي فأصلحوا بين أخويكم ولا تنمدين الصوبية أو هجاجية. ما دام الأمر كذلك، ما دام صدق ربنا وحاربنا إن استعمالنا العقل الهادي عقل الدجن، هي القلب الواسع الصدر الواسع قلب بلارن، هي الرؤية البعيدة فيشن دير، هي النظرة الشمولية إن ندور بوحكي كرنو إن كنت ذهلنا هدو إلهي لادو تبارك وتعالى. ولا ريال ساكا وحان دقيستي خطبة وجيديي مدحوينها سومالي اللاد مصبحي. أوكي مصبحي وحوكو دواقي إن أغير ريو ذاتك أضياشا قرادة إنو قرادة إيو أضيال إيو عقال أدريو إيو أضيال سلاطين oo labada odayaal ay heshiinayaan waxay ku heshiiyaan oo ogol yahay hadal ballaaran oo dheer oo degan, laakiin waxa ku jirta kelmad muhiim ah, laba kelmadood oo muhiim ah. kelmadda koowaad waxay ahayd ciidamada jooga meesha kama soo baxayaan meeshaas maxaa yeelay dhulkii ay cadowga ka ilaalinayeen iyo joogaan buri. sidaas buu hadalka u dhigay Muuse Bixi. waxaa markaas u jawaabay garaad ka mid ah
garaadada waaweyn ee fadhiya magaalada laascaanood waxaan marka hore isku dayaynaa inaan dhegaysano hadalkii muuse bixi ila dhegaysta waxaan filayaa in imika heshiis lagu yahay in la degay yaroori oo ka dhisan yahay isbitaal aad u weyn oo cusub oo ay dhistaan gurajooga yaroori oo aan hore u shirinay mar ay maalin dhex taallay beeshaaka dhigtay maxamuud aa dhexdeeda oo 2 bilood loo fadhiyey oo dhowr boqol oo qof qaada inuu ku filan yahay in lagu shiro uu ku haboon yahay dadkii dhammaanta halkaa nabadooda inoo taageeraya intaa la gasheetia xirinba maanta halkan korga waa nabada Soomaaliland taasaa u taala noo madax uu ka saaray tabashada waxa kala dirsanayo waxa ka imagay waxa sababta fogaanay wala ka shirto waxa dhaqameed kala kalsoon ku qomay nabada soo dhalid wala xabad joojiyaan inay Soomaaliland isu soo celiyaan cidii aad gashay iyo waxa la tirsan inay qaadato haddii xukuumadda qaad ama soo aada saaro tii ka horeysay qaraar la galo wala sugaa waxaana dadkii wax loo sameeyo aad iyo aad loo mahadsantiin ilaahay uu ku shawaa nasiiyaa waana maxamed wasalaam okay ikhwani fillah halkaas waxaan ku arkaynay mudane muuse bixi oo ka hadlay in odayaal la dirayo inkastoo codku yara gaabnaa odayaasha la dirayana inay halkaa u tagi doonaan odayaasha garaadada ah oo odayaashii dhaqanku ay kulmayaan qolada kale loo tagayana ay ogolaadeen in loo yimaado meeshii lagu qaban lahaa shirkana uu xadiday dhakhtar buu xadiday meel buu xadiday waxaas oo dhan ayuu sheegay muuse bixi markuu muuse bixi intaa sheegay garaadada ka mid ahaa ayaa hadlay hadhow waan sheegi doonaa magacda garaadada hadlay oo dhan insha allahu tabaaraka wa tacaala marka isagana hal dhegeysto haddii aan la xiriirin ma jirto kuwa nala soo xiriirin ma jiraan igoon waxaan ku qabanaynaa gogol noo sheegay ma jirto wax allaale wax ka jira ma jiraan warkaa sheegtay maanta waa been weeye maalintii horaan kuu sheegay waadna diiday cidda aad la tashataana waa cidda dadka laynaysa wey waxaan ku leeyahay ciidamadaada ka saar dadkanina kama duwanaa dadkii aad hargeysa ku leynaysay ku xasuuqaysay raxmaan raxiim bismillah okay jazakum allahu khayran waxaad halkaa isagana aan ka maqlaynay garaad maaragtay jaamac baan maqlaynay oo ka hadlaya isaguna mawduuc ku saabsan arrinta ah ma odayaashu may la soo xidhiidheen mise lama soo xidhiidhin marka insha allahu tabaaraka wa tacaala mawduuca aan maanta ku fadhino waa mawduuca weeyaan waa mawduuc ku saabsan su'aal baan isweydiinanaa yaa gacanta ku haya xalka siyaasadeed ee laascaanood yaa ku haya xalka dagaalka inuu damiyo yaa gacanta ku haya man yamlik qofka ma dowladda soomaalida xasan sheekh uu madaxa ka yahay yaa dagaalkan joojin karta ma waxaa joojin karaa dagaalkan muuse bixi iyo xukuumaddiisa dagaalkan ma waxaa joojin kara garaadada magaalada laascaanood fadhiya ee shirku uga furan yahay joogtada ah ee dheer ma waxaa dagaalka joojin kara dowladaha jaarka ah Ethiopia Kenya iyo Djibouti dagaalka ma waxaa joojin kara oo ku guuleysan karta ururka midowga Afrika ma waxaa ku guuleysan karta jaamacadda carabta ma waxaa ku guuleysan kara ururka midowga islaamka dagaalka ma waxaa joojin kara culamaa udiinka soo saaray bayaanaadka aadka u fara badan ee ka bilowday markii ugu horeysay Nairobi ee soo maray markii labaad magaalada Burco ee ku sadexaystay magaalada Hargeysa ee ku afaraystay magaalada Muqdisho iyo bayaanaad kale oo ka soo baxay dibad jooga culimada dibad jooga ah ee caalamka ku firirsan waxaa joojin kara dagaalka
odayaasha dhaqanka ee Soomaaliyeed mabaaci mushtarka iyo dagaalka joojin kara dagaalka ma waxa joojin kara mujtamaca ama bulshooyinka caalamiga ah sida midowga reer Yurub oo Soomaalida gargaar u fidiya waxa joojin kara dalka Mareykanka oo kule itaal badan Soomaalida dhexdeeda waxa joojin kara jumciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo hay'adaha kala duwan dagaalka ma waxa joojin kara oo awoodda leh in aan orano waddanka Imaaraadka oo dhinacyada kala duwan cilaaqo wanaagsan la wada leh ma waxa joojin kara dalka Qatar oo ku takhasusay dagaalada noocaas oo kaleeta ah in ay farageliso oo ay wax ka qabato waxa joojin kara dalka Sacuudiga oo awood diineed leh oo suurtagelin kara inuu u yeero labada daraf ee haysa oo kacbada garabka uga fadhiisiyo sida uu Lebanon ba ka yeelay amba wadano badan oo muslim oo haystay oo ka yeelay kadibna xal uu soo gudbiyay waxa joojin kara dagaalkaas waa ayo su'aashaasi waa muhiim si aan su'aasha uga jawaabno waxaan ku dadaalayaa horta marka hore in aan saddex arrimood sii maro number 1 in aan ka hadlo dad fara badan oo dadka degan ah gobolka Sool gaar ahaan Laascaanood iyo geeri ku imatay si maaragtay gardarro aan u dhintay oo dad caadi ah oo shacaba oo dhakhtar leh oo aabba leh oo hooyo leh oo ubad leh waxaan leenahay dadkaasi ilaahay tabaaraka wa tacaala naxariistii janno ha ka waraabiyo dembigoogana ha dhaafo hana ka dhiga shuhado ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadiisa uu ku soo dhoweeyo labada maaragtay arrinta labaadi waxa weeye in aan oranno dadka wixii ka dhintay ciidamada Somalilandna ilaahay ha u naxariisto tabaaraka wa tacaala iyakana waxaan u rajaynaynaa inuu ilaahay dembigooga dhaafo maxaa yeelay dadka muslimiintu markay isdirraan halis badan baa ku jirta saddex waxaan kale oon jecelahay inaan tilmaam yar ka bixiyo arrin muhiima arrinta muhiimkii waxa weeyaan inaan dadka barakacay ee baxay ee u dhashay gobolkaasi ee caalamka hareeriyahooga ku qaxootiyoobaya in ay dadka muslimiinta ah ee dibadda joogayay inay wixii ay u qaban karayaan oo ah in loo qabto oo waajib ah in aanan laga hagran oo hore loo wado oo la gargaaro qof kasti oo muslina oo Soomaaliya baa sidaa waajib ay ku tahay okay intaasi waa inta aan islaahay meeshatan halista ay leedahay yaan arkaya anu markasti markaan halista ka hadlo analysis baan saaraa waan taxliiliyaa sidii markii dagaalkii city uu ka socday oo isdirirayeen dad aniga ila qaraabo ah iyo canfartu markaan taxliiliyo labada daraf way ka cadhooriyeen maxaa yeelay waxay nacayaan dadkeennu waxa loo yaqaano at-taxliil al-cilmi waxay dhahdaan culimada waaweyn marka ay baarayaan nolosha iyaa wada dadku waa saddex bay dhahaan waxay dhahaan hogaamiyayaal la wado hogaamiyayaal wax wada iyo caamo la wado iyo aqoonyahan iyo culimo labadan u dhaxaysa dadku waa saddexda waxay dhahdaan qaada siyaasiyuun musaqafuun wa culamaa iyo caama wa shacab dadku waa saddexda wax ka baxsan adduunka ma jiro maraykan haddaad imatid dadku waa saddexda haddaad tagtid faransiis waa saddexda ingiriish waa saddexda dhulka carabta waa saddexda soomaalida waa saddexda waxaa la dhahaa markay azma dhacdo Dr. Jasim Sultan ninka la dhahdo oo reer Qatar wuxuu dhadaa markay azma dhacdo crisis markuu dhaco qolaa baaba'da laba qolaa soo hadha bis waxaa baaba'da qolada uu bixiyo hogaamiyaasha alqaada iyo baaba'da maxay noqdaan waxay ku biiraan musaqafiinta iyakii laga rabo inay solution keenaan waxay isku bedilaan inay taxliiliyaan sida dadka kale u taxliilinayaan analysis bay markaa sameeyaan waxaan baa dhacay maxaa yeelaa dadkay la mid noqdaan marka maxaa yimaada waxaa yimaada waxa loo yaqaano alfaraaq asiyaasi siyaasaddiiba faaru noqota viid baa dhaca dadkii musaqafiin iyo shicib bay noqdaan maxaa markaa imata allah xal solution la'aan baa markaa imata dadkii solution looma hayo xal la'aan baa lagu dhacaa dadkoo dhan waxaa ka dhaxeeya dagaal alfaad ah iyo taxliil iyo iyaa gardaran iyo sidee loo xalini maxaa la yeeli intaaba lagu meeraysan dad qaata decision
oo yidhaahda annakaa xalinayna yaa la waayaa marka halkaas maxaa muhiim ah cinda alazamaat yaqiib alqaada marka karaysisku dhaco qaadada waa la waayaa qaa'idkii wuxuu isku bedelaa aqoonyahanka qaarkoodna waxay noqdaan rajulu shaaric shicibka caadiga waxay u fikiraan sida shacbiga caadigii u fikiro idan ikhwaanii fillah walaalayaal mas'aladda aan ka hadlayno waa mas'alad khatiirad ah aad bay khatar u tahay maxay khatar ku tahay marka koowaadda waxay khatar ku tahay dhiig muslim baa daadanaya dhiigga muslimka ana nebigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nebigu ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum haada fii baladikum haada fii shahrikum haada wuxuu yidhi sal lla slam rasuulku dhiigaggiinna xoolihiinna sharaftida iyo cirdiga aad leedihiin xaaraan bay korkiinna inaga tahay inaad isku xadgudubtaan limaada bisha dulxija se laisku xadgudbi karayn oo maalinta carafa laisku xadgudbi karayn ee waddanka maka laisku xadgudbi karayn bay sidaa bay xaaraan u tahay buuri sal allahu calayh wasalam weliba bisha aan joogno waa min ashhuri alxurum waa bishii rajab ee in dhiig la daadiyo ay xaaraan ahayd marka waxaas la fiiriyo waxaan leenahay khatartu waa dhiigga muslimka oo daadanaya arrinta labaad waxa weeyaan soomaalida oo soo jarribtay dagaal 30 sano ah oo ku jirtay waxa loo yaqaano vid politic alfaraaq asiyaasi in ay siyaasaddu faaruq ahayd muddo fara badan oo bilaa dowlad lahaa xataa dowladda jirtana ay dowla hasha tahay dowlado khafiifa ay yihiin xataa saladaadka jira dowladaha yaryaree gobollada ka jira ay yihiin hash wax jiricsan oonan ahayn dowlado maaragtay adag oo solti aynan ahayn waxaa markaa dhacaya ikhwaanii fillaah waxa daciifka ah hadduu sii daciifo waa burbur weeyaan arrinta saddexaadi waxa weeyaan waxaan ku jirnaa marxalad caalamiyan adag oo ay soo socoto gaajooyin waaweyn adduunka waxaa laga warramayaa bishaaradii ha la biiriyo dhaqaalaha ha la kordhiyo shaqo ha la helo adduunyada waxaa laga hadlayaa lacagihii baa dhacaya sicir barar baa jira adduunkii sheeko kalaa ka socota annaguna waxaan soconnaa xuruub ahliya inaan isdirirno ayaan soconnaa taasina halisteeday leedahay arrimahaas oo dhan markaan eego anigu waxaan isweydiinayaa markaan ka dhaqaaqo khudbaddu iminka jeediyey muuse biixi oo 4 arrimood lahayd 4ta arrimoodba taxliil baan saaraynaa iyo jawaabta ay ku jawaabeen odayada kala duwan ee garaadada ah dhammaantood ay ku jawaabeen oo ay jawaab soo bixiyeen jawaabtoodaana ay iyakuna 2 arrimood oo muhiima ku jiray 2da arrimood iyo 4taa baan isla eegaynaa kadibna waxaan gaadhaynaa iyaa gacanta ku haya si dhabana u xallin kara mushkiladda ummadda haysata ee maaragtay maanta ay la taahayaan su-aashu waxa weeyaan walaalayaal horta culummada islaamka ee soomaaliyeed waxay soo saareen bayaanaad bayaan baa ka soo baxay maxaan ku dhahdaa kenya bayaan baa ka soo baxay maxaan ku dhahdaa hargeysa bayaan baa ka soo baxay maxaan ku dhahdaa burco bayaan baa ka soo baxay muqdisho bayaanaadkaasi waxaa u dhexeeya wax badan la iskaga eegyihiin oo maxaa yeelay muntalaqu waa diin bay ka hadlayeen culummadu laakiin waxay ku kala duwan yihiin ninba meesha uu joogo iyaa taabsanaysa matalan bayaanka ka soo baxay nairobi wuxuu sheegay in ay gardarradu ay somaliland ay leedahay 2 wuxuu sheegay in dadka magaalada degan lascaanood la xasuuqay oo la weeraray ayuu sheegay bayaankaasi halka uu bayaanka hargeysa ka soo baxay shaqaqaal oo ku tiran waxyaalo yaroo dhacdhacay oo aan badnayn oo sidii mudaharaadka oo kale ah amba dhagax la daadiyey oo kale oo magaalada ka dhacday ayuu ka dhigay arrimaha ka dhacday magaalada maaragtay lascaanood okay 2da bayaan marka aad muqaaranaysid waxaad ka urinaysaa inay kala duwanaanshaha keenayso meelaha la kala degan yahay iyo dadka ku meersan culummada ee ta'siirin kara culummadu waxay leeyihiin xer bay leeyihiin dad baa la jooga dad baa kicinaya dad baa la hadlaya dad baa la xaqa sheega se loo qaylinayo kale marka qofka waa qof bini aadana marka uu yidhahdo wax taxliili ka bixi kari maaya bii'ada uu ku dhex jiro isaguna okay marka aad u fiirsatid bayaanaadka waxaad ka arkaysaa inay isku mid yihiin 93 29 markaan tiriyey laakiin 8 7 ay u dhaxayso farqi ay keensanayso meesha ay degan yihiin
iyo meesha ay ku abtirsanayaan waxbaa kaga dhex jira markaasi oo hadalkooda ku jiri karaya wuu ku jiri karaya okay ikhwaani fi islam walaalayaal marka aan ka hadlayno mawduucan maanta aan ka hadlayno bayaanaadkaas dowrka culummadu muxuu noqonayaa ma bayaan buu noqonayaa mise mawqif buu noqonayaa wax weeyaan bayaanku dagaal waxaan idin sheegayaa dagaal baa ka dhacay iiraan iyo ciraaq wuxuu socday 8 ilaa 10 sano qarnigii 20aad dhammaadkiisii dagaalkaa markuu dhacayay culummada islaamka adduunka joogto oo dhan waxay soo saari jireen bayaanaad wuxuu ka soo bixi jiray azhar wuxuu ka soo bixi jiray hay'atu kibaar alculamaa oo sacuudiga ah wuxuu ka soo bixi jiray raabitatu alcaalam alislaami wuxuu ka soo bixi jiray munadamat almu'tamar alislaami wuxuu ka soo bixi jiray culummada xarakiyiinta ah hadday degan yihiin shibil qaal hindiya oo bakistaana hadday degan yihiin masar hadday degan yihiin suuriya hadday degan yihiin ciraaq waxaa soo bixi jiray bayaanaad labada daraf ee ishaysa ugu yeedhayay in ay heshiis galaan laakiin bayaanaadkaasi awraaqdii lagu qoray unbay ku qoran yihiin arshiifka iyo meeshii maalintii la dhigana ilaa maanta way yaalaan wax ay ka qabteen oo solutiona barnaamijka ka dhacayay dagaalkaas ma uunan jirin markii ciraaq maraykanku soo weerarayay culummadu bayaanaad bay soo saareen bayaanaadku bayaanaad unbay noqdeen wax ay ka tareen oo badan ma jirin saddex marka oo soomaali weyn la isdirirayay culmo badani bayaanaad way ka hadli jireen laakiin lama dhegaysanayn dagaalkii qabaligu uu sii soconaya uun su-aashu markaa waxa weeyaan mawqifka culummadu ma bayaan baa mise waa mawqif waa number 1 number 2 waxa weeyaan bayaanku waa hadal mawqifkuna waa ficil waa positionka waxaa ku xiga tawxiid wa waxdat almawaaqif in mawaaqifta culummada la mideeyo mawaaqifta culummada in la mideeyana waxay ku xidhan tahay saddex arrimood bay ku xidhan tahay number 1 culummadu inay ka baxaan qafaska ay ku jiraan oo ah qafaska koowaad waxa weeyaan qafaska jamaacaadka ay matalaan ururada ay ku jiraan waa inay ka soo dhex baxaan laba waa inay ka baxaan qafaska ah wadannada ay ka tirsan yihiin lianna caalimku turkigu u hadli falastiin buu u hadli suudaan buu u hadli caalimka ummaddaa leh diintaa leh kooxima leh reerima leh waa inuu ka baxo iyadana arrinta saddexaad waxa weeye caalimku waa inuu naftiisa ka xoroobo shakhsiyadaada personalitigaaga waa inaad ka xorowdid oo tidhaahdid waxa aad sheegaysid ilaahay dartii aad u sheegtid dadku hadday wada qaataan alxamdulilah hadday wada diidaanna addayta risaaladii baad gudatay adigu uma baahnid in lagu siiyo like iyo shaar iyo jacayl iyo sacab lagu tumo fannaan ma tihid ma aragtay siyaasi waxaa tahay qof mabda iyo fikrad fidinaya marka laa tufakir fi daakhil qafas qafaska ka baxa qafaska ha ku dhex jirin arrintaasi waa muhiim arrin kalaa rabaa inta aan ku sii maaratay fogaan inaan ka hadlo dad fara badan waxay leeyihiin ma aladii askata الشيخ مصطفى شيخ مصطفى هرت معاه آموسية بدل بدن أيليه وحنا بلا بفكرة النوع عاسى إن أن صاحبنا هاي أول ده عبد الحسين وعسكو ده يمرك هره أنيقا أو أن صاحبنا هاي إنه يورره ويلا هذا سدا مو يلا هذا سدا يشيء إنه يلا معه لكن إن تراد سدا هذا يلي ودي واسك آموسيله ومحن آموسيله أفكاره يسياد أفكو مسين أفكار أنا عليه عقلي أنيقا عليه qalbigayga aniga leh raganimadayda aniga leh aduguna waxaaga leedahay cabdi xiseen walaalkay sheekhow marka labadaas wax weyn waan kala duwanahay maanta sheegi doonaa wax badan baan ku kala duwanahay wax badanna waan isla ogolnahay arrinta labaadi waxa weeye wuxuu weeraray sheekh mustafa uu yiri sheekh mustafa maxamed siyaad dar uu weerari jiray muuse bixi muxuu weerari lahayaa marka aniga sida ila tahay baa indin sheegaya sheekh mustafa xaaji ismaaciil anigu saddex arrimood baa inaga dhaxaysa kow horta sheekh mustafa waa nin wadaada oo sheekha oo caalima oo aqoonyahana oo ka duwan culummada soomaaliyeed in fara badan kaga duwan alqiraa'ataan qiraa'ada diintana yaqaana qiraa'ada waaqica iyo adduunkana yaqaana waa qiraa'ataan qiraa'atu lwaxyi wa qiraa'atu lwaaqic labo sheekh mustafa waa nin dadka muslimiinta oo dhan jecel soomaali oo dhanna jecel soona kala dhawaysan anaa og ما سوق الدويستو أنت صدق حادي وحوية
sheekh mustafa siyaasadda uu galaa mana galo wayna saa garanno sheekh mustafa siyaasadda uu galaa mabaadi'u galaa laakiin tafaasiisheeda ma galo sheekh mustafa laba qof oo siyaasad ku haya ma dhex galo laba reerood oo siyaasad ku haya kama hadlo laba dowladood kama hadlo laakiin mabaadi'da siyaasadda u sharxa halkuu waxaan sheekh mustafa ka keenay sheekh mustafa aniga waa saaxiibka saa inii sheegay waana walaalkay sidaana waanu aaminsana waana ardayna mar baan u noqday oo jahuuti inoogu yimiday uu waxna barayay arday rasmiya yaan ugu noqday fi masaa'il cidda fikirka islaamiga cilmiga usul fiqiga waxyaalo fara badan yaan arday ugu noqday sheekh mustafa xaaji ismaaciil waana nin waxaasoo dhan ku fiican aniga iyo sheekh mustafa xagga siyaasadda waan isku khilaafsannahay khilaaf adag aniga wuxuu igula taliyey siyaasadda ka bax aniga waxaan kula taliyey siyaasadda gal taasi waa ra'yi laakiin taasi anigana raganimadeeda ma dhimayso isagana raganimadiisa ma dhimayso limaada lianna sheekh mustafa waa inaan garanno sheekh mustafa waa madrasad annakuna madrasad baan nahay waa iskool isaguna waa iskuul annakuna iskuulka laan nahay waa dugsi isaguna dugsi buu yahay sheekh mustafa waxaan anu idhahdaa waa maxamed qutubka soomaalida sheekh maalin dhow baan uga sheekeynay wadadaan saaxiibanahay sheekhaan saaxiibanahay oo reer maaragtay somaliland reer hargeysa waxaan ku yidhi dhegeysa sheekho magaciisa inaan sheega ma jeclay sheekh mustafa dadku ma yaqaanaan laakiin anu waan ogahay ninkii markaan u warramay wuxuu ogaaday wax badan oon ka ogahay uu isagu ka ogeyn laakiin waxbaan isku birbirsaday waxaan idhi sheekh mustafa marka koowaad waxa weeye waa madrasadda maxamed qutub madrasadda maxamed qutub markaa maxay tahay madrasadda maxamed qutub waxa weeyaan waa madrasad afkaarta islaamiga fidisa saxwada abuurta iyo qadada islaamiga abuurta ka hadasha alqadaaya alkuliya qadiyadaha waaweyn laakiin tafaasiisha ma gasho ma dhacdhaclo lama arag sheekh maxamed qutub oo ka hadlaya fiqhi lama hayo sheekh mustafa oo fiqhi ka hadlaya lama arag sheekh maxamed qutub oo intuu tagay telefishan laga wareysanayo mar dhood buu tilaaw naxariiste mufakirka weyn maartay afartaneeyka kitaabka qoray lama hayo sheekh mustafa oo intuu telefishan fadhiistay oo laga wareystay sheekh mustafa male beesh facebook male sheekh mustafa waxa weeyaan waxa uu leeyahay laba meelood wuxuu leeyahay mimbarka khudbadda jimcaha oo marka uu joogo khudbadda uu ka akhriyo wuxuu aaminsan yahay inuu ka hadlo labo sheekh mustafa wuxuu ka hadlaa mu'tamaraadka iyo muxaadaraadka dadka ugu yeedhi kursi baad u soo dhigi uu fadhiisani mawduucaad siini wuxuu jecel yahay uu isagu og yaho xaqa ayuu ka hadlay laakiin intaa buu leeyahay maxamed qutubna intaasu lahaa haddaad baadhiin taariikhda maxamed qutub oo saxwada sacuudiga sameeyey wuxuu la mid yahay sheekh mustafa oo ka qayb galay saxwada geeska afrika laakiin maxay labadoodu ay ka siman yihiin dul bay joogaan ma dhaadhacaan iyo kaa doortay halka maxamed qutub uu ka duwan yahay qaradaawi oo siyaasadda gunta ugu dhex jiray guudkana la joogay diintana la sharcayay halka salmaan cawda oo ardaygii maxamed qutuba uu dushana joogay hoostana u soo dhaadhacay uu diin u sharxayay halka uu maaragtay cawad alqarani dushana uu la joogay soo maxamed qutub hoostana u dhaadhacay way kala duwan yihiin halka somaliland waa sidaas haddaad u fiirsatiin matalan sheekh mustafa iyo sheekh almis waa laba ninoo isku bedersada saaxiiba laakiin midna kor buu joogaa midna u dhaadhaca hadii xaqiiqa markaa sheekh mustafa wax uunan diyaar u ahayn oo isagu uu iska daayay khayaar inaad ku khasbataan ma qofka qabsan lahaa waayo annaka reer jabuuti waa macallinkay saxwada iyada uu ka qayb galay inuuna sameeyo markiina la xidhay aad buu uga calaacalay wuxuu yimiday jabuuti wuxuu dowladda ayaa muxaadaraad ka qabsatay uu galay waan canaananay wuxuu yidhi wallahi waxaan sameeyaan garan waaye haddana mar dambuu tagay booliiska dadka laynaya ayuu muxaadaro u galay anigu waan cadhooday laakiin cadhadayda telefisyon lagu soo fadhiisan mana sheegin maxaa yeelay mustafa waan ogahay wuxuu halkaa ka sheegay run bay ahayd diintii buu sharxay bas wax beena ma sheegin laakiin meeshu ma sax baa mise waa qalad waa arrin kale weeyaan annagu kuma qabsanteed ma oran maxaad u raacaysaa maxaad baadilka u raacaysaa kamaan oran waxaan dhahnay uun waa ra'yigiisa waa fikraddiisa waa mustafa aan naqaanay waa sheekhii wanaagsanaa waa sheekhii qalbiga fiicnaa ahlan wasahlan dadku way kala duwan yihiin marka walidaalika khalaqahum ilaahay baan saa u abuuray tabaaraka wa tacaala okay intaas markaas
أركي ما ده وحويان والله يا سياسته وحيلها ده لا بقى رمود سياسته ما هو عادية تصفر بدان باك هلا وحن أنا أنت بدان أنك هلا ومارت كنقاشة وكشكية إن أنك هلا الله وحلو يقانو إن علوم ذي النقاركود أي اسكول كان منطق الدعوة هي منطق السياسة اسكول الضحى أخوان أكون دارينا لوجيك السياسة دو هي لوجيك الدعوة دو ويكل دون تاي ما تايردوس دولا لوجيك الدعوة دو وحويان دتك مذاع دتك الدين تأشاك دتك بدبالي دتك الجنة الجي دتك عذابتك بدبالي هذا هو اللوجيك نبي محمد مركو دعوتك الله يو ساسو هذي لكن مركو سياستك الله نبي محمد ركبوا يسكت عليه عليه الصلاة والسلام مقصلين سياسته ومغالبة والله لبا طرف ويسايسا ومدينة هي وان كعبة مدينة أولية يا جماعة عبتين صراع باجي روح على اللولا سياسة اللولا بيقول جدا مركا هذا منطقة دعوة السياسة جينا وخلطمة يا منطقة السياسة هذا قانون دعوة جينا وخلطمة يا وإن أنكرت الدور كإنك أنكجرو دور سياسة ده بس هو دور دعوة أوكي قفك أنكف في عينين سياسة ده إنه كهالله وإنه الدور كدعوة كجرو تخصص باجرة سبيسياليست هذا هو واحد في عنده هي دعوة ده وخشاكين هذا هو واحد في عنده دعوة ده سياسة ده والله ما كهذا هذا سياسة ده ما في عنده سياسة ده كهذا هذا نقارات في عنده نقارات كذا إسلام كوحول هذا ودين شاملة نرش ورنبو هلا يستع لكن تخصص كل احترام الإسلام النبي يقول صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم على حق عمر وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ ذاتك وحوكر شيء وحوكر في عين أوكي إخواني في الله وحانوا باهنها إذا كلا صارنا قرط السياسة أصل كي هو بحي محل اسكو هيا example وين example حبا تذكر دقيقتين إلا عدولين جزاكم الله خيرا محل اسكو هيا وهاربا إلا جبد إناس بليسونه لأن ماشي عن كل دونه وماشي جبده هذا الكلجو جوينه لو عياره وفي قاضنه وحسب حكومة ترى وحسب علم ما ومنافق نمو محول إلهي سبحانه وتعالى هذا القرآن كسوقات فويل للمصلين وهذا كله جسد تذكر صلاة تقول عذاب تقرأ تذكر صلاة تقرأ قرأ الذين هم عن صلاتهم سهوا هذا هو سياقاتك وإن إلى الكونتاكس هذاك وإن إلى السدوي ولذلك أحبة الإسلام وحوي هذا الكل وهذا الاسكو حلا وحاولي معنا سياسته وصدح كو وتنظير والله الله يا سياسته وممارسة والله شقينا ولا يقول عجلة وبراكتيكال سياسته ومحي واللعبة والجيل وعيار ولا عيار يا سياسته ولا عيار ولا هو فريق وعيار وصدح مركا التنظير كان لقى الله سؤال بالسويدية تيوريك السياسة سؤال بالسويدية وحل السويدية الأصل في السياسة ومحي سياسة أصلها محل اسكو هيا محي أصلها سياسة الأصل في السياسة ومحي الخلاف وإلا الخلاف ويا آدي دقيسو سياسة وحا أصلا إلا إسخلافه لماذا محل اسمه خلافه يا ولذلك خلقهم إلهي بصاوة أبو لتطك تطك اسكمان ماها ما رقي ومدعي أفكي نبوحو أركيا أيوكو شقينا يا نبضنبو راعيا غير بدنبو راعيا كوح بدنبي راعيسا وحا إسهايا وادانو إيا مبادئ كلا دون إيديولوجيادو إيا مسالح كلا دون إيا إسهايا maxay isku hayaan meedaanka siyaasadda isku hayaan idan siyaasaddu waa maxay waa asalkeegu waa khilaaf al-aslu fi al-umma ummadda islaamkana maxaa asal u ah al-wahda inay mid tahay okay ummadda islaamku asalkeegu waa mid wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida al-aslu fi siyasana waa maxay waa khilaaf siyaasku keena rabas ummadii oo mida iyo asalka siyaasadda oo khilaafa oo ay rag is hayaan Abu Bakar oo ummadda ugu khayr badnaa iyo Umar oo ummadda islaamka ugu khayr badnaa ragii ugu khayr badnaa nabiga dabadii ah ba isqaban jiray siyaasadda ilaa uu nabigu ku yiri sallallahu alayhi wasallam law ittafaqtuma ma khalaftukuma haddaad labadiinu iswaafaqdaan inama khilaafayo waligi laakiin ma iswaafaqeen Abu Bakar iyo Umar waligood may ilaa uu Umar ku yiri Abu Bakar ayaan walba waxaad ugu talgashay inaad khilaaftid way iskhilaafayeen marka khilaafku waa asal dadka bini'aadamka siyaasad ahaan marka ummad la dhaqayo la maamulayo waa iskhilaafaya haddana maxaa ku dhahay ummaddu waa mid asalkeedu
إنك لا تكتمع واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لبضا إلا الشقيسية لوبهي في عن سكولا سعنه وحي علمته مركها إلى هذا السياسي الناجح هذا نيك السياسي الناجح يكون ليسنا إنه أمضى نقوه ومحي وقفك يقانا إدارة الخلاف السياسي إدارة النزاع السياسي إدارة الصراع السياسي خلافك السياسي وإنه منجما معمولي كرويا وإنه معمولي كرا إسكودع السياسي وإنه معمولي كرا إزيجيتك السياسي وإنه معمولي كرا هذا هو السياسي الناجح هذا هو حويان صراعا كالسعودة لاسعنوت إسهايستان لبضن دولدن سومالي لاند يددك الديغان كالي يدوك كالي إسهايستان محل اسكو هايستان جوهر التدافع وإلى البعد جوهر التنازع جوهر الخلاف خلافك جوهر بوليه قوم بوليه نواة بوليه محوية هاي وحل اسكو هاي وحويان أنكو وان شرني سومالي لاند منهين هاي وحان نهي قبل كيغا وان قوني وحان كمد نهي خاتمة سميسان خاتمه هاي SSC با سميسان وحان نهي كوح هالكا فريستي هذا هو نواة كواكا سومالي لاند محايلات هاي وحايلات أريتها سيمتعي كريسو هاي وحاد كميتين سومالي لاند أيانتي هورا وحا إني شاقي لابا مسألة دور نضو تهديد يهامش تاميش هديدات بدرامي سومالي لاند قرضة كلا تاميش بدرامي لا إميك صراعه الدون كمركا لبارو سيدا جاسم سلطان iyo maaragtay Abdullah Nufaysi iyo ninka la yiraahdo maaragtay maaragtay Kissinger waxay sharxaan cilmiga siyaasadda markay sharxayaan waay muxuu u dhacaa siraac waay maxaa la isku qabtaa isqabadka la baara lama baaro wax kale meesha qolaa ka socota irirismi darodismi waxaasi waa sheeka caruureed waa sheeka dhooqeed لكن شيكة حقيقي وحويان وإن دافتد واحد ضدك كشيكانيان وتقومت تكتب مركز قومت تكتب وحضرتك إذا جوهر الصراع ومحي وحيدوني كلاسيتان وطاوية والله بضع منطقة كون ومحي لوجيكو ومحي وطا كون لوجيكو وطاوية صراع عمركو سيداي هاي وحو أكرب بحالة ضدك استدرار ياهي وإني كجران دقال هذا تنافسي ولا ترتميا وحال جرا one situation aniga iyo adigaba waan tartamaynaa oo wada najaxaynaa okay anu maxaan rabaa haddaan ahay reer maaragtay sool iyo haddaan ahay SSC haddaan ahay khaatumo maxaan rabaa u fiirso waxaan rabaa inaan go'o inaan Soomaali weyntii baan aaminsanahay weligiiba halkaa baan joogay maskaxdaydu halkaa bay joogtay iminkana waaqican halkaasaan jooga saas u fikiraya Somaliland waxay leedahay anu maliya dadka yiraahdo waxaad aaminsantahay Ingiriis waxa ma waxay Somaliland ay leedahay Britishkii meeshuu kaga kacay oo Afrika isla ogoshay iyaan aniga xuduudaydu ku joogta wixii Talyaani ahaana waa xuduud kale sidaas baan anakaana soconnay oo Soomaali way ku biirnay imikana waan soo noqonnay gobolkii oo dhan baa soo noqday waka marka arrinta habay labadu isku hayaan ma si tanaafusiya la isku hayaa ما إلا وضن نورada la doonaya iyadoo taan la isku hayo mise dagaalku waa صفر وزيرو labadu waxay amba ana adkaan amba adiga adkaan ina faahno markaa nooca siraac jawharkii waan garanay guntii loolanka waan garanay laakiin nooca uu isku bedelayo siraacu waa noocee zero ba mise waa maxay mise waa tanaafusi wala tartamaya okay si aan u garanno ma tartan baa mise waa la iska takhalusaya waxaa la eegaa su'aal baa la isweydiiyaa cilmiga siyaasadda waxaa la isweydiiyaa yaa xadidaya natiijada siraaca dagaalkani resultaga uu ku dhammaan doono yaa xadidaya ma waxaa xadidayaa qolada leh waxaan nahay Soomaali weyn mise waxaa xadidaya qolada leh waxaan nahay Somaliland labada kee bay xadidaya hada su'aal waa su'aal muhiima labada daraf ay ishaya had iyo jeer يكا حديدا maxay ku xadidaan laba arimood bay ku xadidaan ko waxay ku xadidaan visionka labada daraf ay kala qabaan xoog isku qarafsan vision dadku waxay ka dhigaan visionku inuu caadi yahay visionku minka caadi maaha visionku caadi uu ka baxay visionku u ballaaday ru'yada ay arkayaan
reer ma aragtay reer laascaanood amba SSC do arkayaan wuxuu noqday annaku marna kama mid yihiin Soomaaliland waadixa darafka kalena wuxuu leeyahay may ma dhicina arrintaasi ma dhici karto walidaalika waxay leeyihiin natiijatan lidaalika si ay sheeka inoogu furanto waa inay ciidamadaadu dhulka ka baxaan waa inay dheeraadaan socdaan qolada kaleetana waxay leedahay ciidamadu waxay joogaan dhulkii ay ka talinayeen marka su'aasha koobaad ee lagu garto natiijadu halkay tagaysaa waxay noqonaysaa maaragtay waxaan u bixinay 1-1 situation mise waxay noqonaysaa 0 iyo noqonaysaayo labadu mid baa waa in iska taqalusu dhigdaato maxay xadidaya su'aasha waxa xadidaya visionka labada daraf ee haysa ay kala leeyihiin waa muhiim inaan ka boodboodna ma aha arrinta labaadi waxa weeye ee xadidaysa miisaanka quwadeed ee labada daraf ay kala leeyihiin okay miisaankooga waxaa jirta wax la yidhaahdo maaragtay cilmiga maaragtay cilmiga istaraatiijiga waxaa la dhahaa maxay haystaan labada kooxood baa la baaraa ee is haystaan alquwa salba iyo alquwa naacima artka loo yaqaano maaragtay powerka iyo soft powerka labadaas maxay kala haystaan soft power maxay haysataa Somaliland maxay haystaan kooxda la yidhaahdo maaragtay SSC labo maxay haystaan hard power alquwa salba xoogana maxay haystaan Somaliland iyo kooxda SSC maxay kala haystaan haddaan taxliilka aan saarno waxaan ogaanaynaa ikhwaani fillah arrin muhiim ah arrinta muhiimkii waa maxay waxaan ogaanaynaa number 1 Somaliland ciidan weyn bay haysataa waa power salt power weeyaan waa power salt power weyn bay haysataa laba Somaliland waxay haysataa wax loo yaqaano quwa naacima oo ah soft power oo ah idaacado badan telefishinno badan dad dibadda u jooga iyo waxay haysataa dad kaleeto oo gudaha ah oo marka laga reebo reerkan aan ahayn intii kale oo weli aan mowqifkoogu yahay mowqif daba jooga Somaliland intaa bay haystaa waa soft power maxay haystaan reer SSC-na reer SSC maaragtay hard powerka ay haystaan iyaguna waa labo shacbiga oo dhan oo israacay inta ugu badan uu israacay ilaahay maaragtay dadku isma wada raacaan laakiin inta badan way israaceen okay labo maxay haystaan waxay haystaan awooddii dadka ay lahaayeen bay u bedileen xoolo iyo hub xoolana waa loo bedelay hubna waa loo bedelay taana way haystaan iyo gargaarka uga imanaya maaragtay Puntland iyo wixii la halmaala okay labo halka softigana waxay haystaan intaas oo sheekh oo tiri waa laga gardaraya fatwa haystaan fatwa jaamiya laba waxay haystaan iclaam caalami ah saddex waxay haystaan Soomaalida kale oo in badani ay la tafaaculayso waxa u noqotay iyadana taasi maxay u noqotay waa power gargaar u noqday oo dhinaca maxay ah dhinaca maaragtay awoodda qabu soft powerka waxa loo yaqaan okay labada daraf miis baa u yaala miiska hareeryahay ka soo fadhiisan doonaan miiska waa taxliilin doonaa maxaa la dul dhigi karayaa miiskaas maxay dul dhiganaysaa Somaliland maxay dul dhiganaysaa maaragtay SSC-na maxay dul dhiganayaan waa lu iman doonaa laakiin intaan taa u iman su'aal baan isweydiinaynaa horta siyaasaddu waxay leedahay laba nin bay leedahay siyaasaddu laba qof nin loo yaqaano rajul dawla rajul ad-dawla waxaa la yidhaahdaa statesman muxuu ka leeyahay ninka dowladda waa shakhsi dowladeed wuxuu ku fikiraa caqli dowladeed مثلا example waxaan siinaya Erdogan waa rajul dawla imika waxa la soo saaray 20 sano baa umrigiisa ku beertay markuu gariir ku dhacay ilaahay u sahlay tabaaraka wa taala limaada liannahu rajul dawla hamad baa haysa ummad buu u nool yahay ninkii loo oran jiray Mahathir ee xukumi jiray wadanka Malaysia waxa loo yaqaan rajul dawla ninkii Faransiiska xukumi jiray General de Gaulle waxa loo yaqaan rajul dawla statesman annaka maaragtay Soomaalidoo kale waqtigii hore ee siyaad bare marxaladii ugu horeysay rajul dawla waxa markii daba maaha aadan wuxuu ahaa rajul dawla statesman rajul dawla
عقالو كلا وحا وركرنا نوعا ما استاد رجل دولة رجل دولة حسب قولوا كله رجل دولة استاد مان waxa weeyaan qof dadka inta badan aanan isku arkay inuu yahay nin dowladeed solution doonaya ummadda u doonaya waxaa jira neerado rajul siyaasa politician waa siyaasa rajul siyaasa waxa weeyaan waa qof lucba ciyaaraya oo ciyaaraya maxaa dantu halkii ku jirtaa maanta dadku Soomaali weyn ku jirtaa waa aragtay reer waqooyiga Soomaali weyn buu danta ka arkay oo dhaafay daradu raacaya halkaa buu ka heesaya halkaa buu ka shaqeynaya waxa uu arkayaa inay taasi yaraatay oo Somaliland dartu ku jirto soo dhaafaya Somaliland buu imanaya waa isagii ma xishoonayo imika muxuu yahay rajul siyaasa maslaxadiisu eeganaya meeshu ka cuni kara waxa dhada wuxuu yaqaanaa garabku meeshu ku yaala hilibka uu kala soo baxaya kalo meesha buu tagaya yalcabu lucbata siyaasiya walaysa lucbata dawla marka maanta Soomaalidan dagaalkan wuxuu u baahan yahay rajul dawla wuxuu u baahan yahay statesman ninkii dowladda maaha nin politician maaha rajulun yashtaqilu fi siyaasa nin siyaasadda ka shaqaysanaya maaha rajul faariq maaha qof ciyaaraya maaha wax kale u baahan yahay ma arkaysiin meesha wax ku socdaan wax dhuuba ka sheekeynaysiin walidaalika markaa tahay nin siyaasi ah laba arrimood uma baahnid marka rajul dowla tahay nin dowladeed markaa tahay uma baahnid inaad ku shaqaysid xusnu niya niyad fiican wallahi waa wartay dadku waa dad isjecel waa dad walaala waa dad islaama hubka way dhigayaan waxaasi xuseen baa ku dhintay nabiga ilankiisii calayhi salaam xuseen bin cali niyadiisu ma wanaagsaneyn laakiin quduraadkiisu ma wanaagsaneyn ma ahayn qawaacid lucba ma aqoon xeerasha ciyaarta siyaasadda muuna garanayn wuu ku qaldamay waa laga waaniyey ibnu cumar ibnu cabbaas saxaabadoo dhan way ka waaniyeen waxay dhahdeen القواعد ليست لصالحنا قواعد السياسة إيمك شقينيسا أنك لما شقينيسو رجال مبادئ لما شقينيسو رجال المصالح بلا شقينيسا مركها عيار نمك دين نوردك وأرضي ورد رضي الله شهيد مبادئ اسمع ورد مركها حسنوني وهي عقاد مفكر كويني مصري وحوري نجح مبدئيا وفشل سياسيا حق مبدأ أو نجح إيديولوجيا دي ونجح إسلام كيبو دفاعي لا ما أنت شهيد الأمة لكنك سياسة وفشل مركا نك رجل الدولة ومباهنه إنه قاطع فكرة حسنية ما وحكو شقينا سا قواعد اللعبة ده دينيسا وشيء دونا مركا قال لنا أرنتا مقالة الأسعار حالكي أرنتا لبعض نك سياسي نرش مركو إيجا يوفيرنيو وحو فيريا سيدي تاي لكن ما فيريا سيدو جعليا أنا واحد جعلها إن أي قبل كان سلوك لي هاي سوماليلاند كسر نقضه أصلا جعشها ويان مسبح أنا جعل وحجعلي إن يكون إن أي كقوان أي سوماليوين نقضان لكن سؤال شو ويان وضعك إقليمك قبل الهجرة وضعك الدولي وضعك أمضو محول الجرا ما إلا كرقه مسئلة يسلجه وضعك سؤال كوين معقدة ما هالسؤال لا يسكت جوابي كريون Soomaaliya kelmad baa inii sheegay ikhwaani fillah waxa la yiraahdo Somaliland waa muqaddas waa been waxa la yiraahdo Soomaali weyne waa muqaddas waa been midna muqaddas ma aha dadka samaystay muqaddas wuxuu Ilaahay soo dejiyay kitaabka sunnaha rasuulka kacbada quraanka nabiga sallallahu alayhi wasallam maaratay kibaaru saxaaba waxba muqaddas laakiin ma aha muqaddas لكن مدرس رماها النجاس رماها محا ماشي جرا رضا الناس تدخل محي ربان هذا تدخل ربان إلى الصومالي بوستان وفخص بك هدوك مجرم أدوك هدوسو كاي ما قص بيه ضربا كل محلوك أوكي كونفورت السودان بس السودان كقول إريتريا هي كقول إثيوبيا وحلا كقول إندونيسيا لا كقول منطقة الجزيرة ده ولا كقول وتمشي وين صعدتهم تانا وحاجنا لبس شيء أو بينا نهاية التاريخ نوابين نهاية الجغرافيا نوابين تاريخ ذو مرة ماتوا جغرافي ونا مرة ماتوا جغرافي ونا وصعدها ضد باسكوبين ضد باكالبيحي أنكو بدون أدنى شك ما هم مقدس لكن بدون أدنى شك من جعلين إلا كالوكوكو وحنجعلها إلا سيمي دورو وحنجعلها جيسك أفريقيا إنه دورة نغضو وحنجعلها عالم الإسلامي إنه ذات دورة نغضو وحنجعلها عالم العرب إنه هالدولة نغضو
waxaan la arkayna microscope-ka adduunka maanta ma shaqaynayo Djibouti intee leegtahay Bahrain intee leegtahay Qatar Imaaraadka waxaan haddii Soomaaliland gooni u goodo Puntland haddii gooni u goodo intee leekaana waxaan noqonaynaa dhibic adduunka cilmiga tanmiyada ee horumarkuna maanta wuxuu sheegayaa dadka ka yar 70 amba 60 malyan dadku hadday ka yar yihiin horumar ma samayn karaan waxay samayn karaan sida Singapore dhaqaale samayn karaan waa inaan kala saarno horumar iyo dhaqaale waddanka dhaqaalu leeyay Imaaraadku dhaqaalu leeyay Qatar dhaqaale laakiin ma dhihi kartid Qatar horumar bay gaadhay ma dhihi kartid Imaaraadku horumar buu gaadhay xadaaro maaha waxaasi tanmiya maaha waxa weeyaan nolosha fiicnaatay rafaahiya nolosha barwaaqo noqotay bash bay ku noolyihiin Singapore waa sida turistiga ku fiican tahay laakiin inaad tirahdid waddankan uu dhaqaaqay la geeska Afrika hadduu wada isfahmo wada dhaqaaq karaya laakiin Soomaaliya kaligeed baa dhaqaaq karin 30 malyan oo Soomaaliyeed ku yimaadeen dhibaato wali haysanaysa marka waxay u baahan tahay inaan u fikirno caqliyad kale oo dantu ay ku jirto masaalixdu sida ay midowga yar ay sameynayaan Mareykanku soo sameeyay waa 11 state cotton state bas yimid oo samaystay United States of America الولايات المتحدة الأمريكية إتازيني أمريكا أكبر دولة في العالم وكنتم دولة دول هذي كلا جوجان دولة دول بكل يوم نلاقتها كل يوم بالدولة بواحد دولة نلاقتها لكن بما أنهم أي دولة سمايستين عرب يكحكم أوكي مركب ما دام أنت يصير فهمي وحوي أنك السياسي وإنه ساوي أيضا أنت اللبات مهم كأ واستاد كان يدرال كان يبلايدا إمك إنه هو حنا وحوي نك الدولة مهملة لكن مصبي حنور وعليا وحنا حي استثمن أم دتا رجل الدولة نين دولة ذبحي أوكي ماكو سلام رجل الدولة محله جبهية أفرشي محله جبهية دولة بإنه مامله فن إدارة الدولة استاد كمامل مامل كدولة محوكة جبهية إسكوت كلاوت إسفهنسي إسكالفهنسي إسكوت دنحد كلا دنحد هرمرك شقيه وموضوعه وحي مران مراحل صدحة المرحلة الأولى مرحلة الوجود وإلى نجرنو أوكي صدق صنع سؤال لدوي جرتها كاستاد دولة عن صدق صنع جرتها سؤال ما كنت جينا صدق صنع ما واحد جيني سؤال مرحلة الجريتان كمان وأنا كبحث وإلى جيش مرحلة الاستقرار هذا قلي ويجي دي بطس عليه عبد القادر الجيلاني بكادر رحمه الله وحلو موضوع أما كره وسعودان أما هوس وسعودان أما هره وسعودان أما قالان بوسعودان مال كلام ماله معها التنمية البشرية وحن قالوا إنه مش هذي عبد القادر الجيلاني بقري رضي الله عنه وحولي مدعي كتوقف عن ميل مستاجا ابن القيم له قري ميل الجوج مجرى الدنك هذا ميل جوج قال الله أخبر النساء لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر لا وجود في الثبات ميل لم يجوا يكرم كاستيون سؤال وحويان فن إدارة الدولة يلو بهاي دتكي دولة نمط محي وجيل بسوا أنا أرد دولة نمط أفريقيا والله يا إخواني في الله إمك أفريقيا شربوا قليان مرتين أسبوع أساس على الدسامة كشريان ماشى أي كشريان إذا جيست أيها الإخوة ماشى أي كشريان أفريقيا كوسكوي منيان وحاول بس شينها شينها بس إذا تضوي قطن دولة دول واحد يسكر واير مقركي سياشكي ماشي كشريان أنك حركة بدأ حمر يادس جيرا دسي بدر بليا يادس إمارة ماشي روادها الأولى مسرحياتك شينا دسي تجيبوتي يادس أقل كومندا شينا دسي حركة بدأ يادس شينا دسي يسكول هذا وضع قرن يادس شباب دسي السعودي الكويتي يلعب معها أين نحن من موقع العرب هل كانوا كجنا معقب أنا مركب ما هي الدولة فن إدارة الدولة دولة واضحة دولة وحويا جيبك هاي كقضاء جيبك هاي كسوع رسالة يضرب حد فردا لا تأخذ شيء مع عنان مع ناحان مع الصعدان وبتكون مع مصيان هي هذيك قال هذيك كسوع رسالة هذه الدولة دولة ما فيها سنبة مركا وضع دتكم الدريم يعني تهميشكم وتهويان ما هو قول رسالة لبو وحإنه يلا دولة دتكم وقوة نك الدولة كشقية حقوق قيبية ليش هو حاجر قبيلة وحاجر برلمان وحاجر أحزاب وحاجر كراسي وحاجر أمارة الصحافة أودا جرا وحاجر الرجل العقلها وحاجر ودادي أودها أبو قيبية ووضع وكلا وضع وسكو وضع نك الدولة دي قالوا ما جا كان سمو
sida ismaaciil umar uu sameeyey ama sida qaarkood ay sameeyaan maaragtay dadka rasaas laga boori maada hadday mudaharaad keenaan waxaa lagu xaliyaa wax kale oo la dhahdo tii Mucaawiya radiyallahu anhu uu yiri haddaad aniga dadku waxaan u dhaxay hal tira haddii riixaan anaa silcinaya haddaad markay jircaan anaa soo riixaya هذه اللعبة السياسية عجيبة جدا ويا أنت كله ومهم كواحد وإلا سكوت تنازلوا نيك الدولدي تنازل كل عيارها مركو أركو يمكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو أرن مهمة وفي رسالة إخواني في الله صلح الحديبية مركو قليل دقال كيجيس الحديبية يهود رجل إلى هذا محاكو إلى هذا قريشته وحيكون قصبين لبا بندي وأدق بندي هو واحد بندي دينية بندي قلبا نوعها بند الولاء والبراء بدي وكوت وحي كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم مصح بسم الله الرحمن الرحيم انا ما اعتراف سين محمد رسول الله انا ما اعتراف سين ان عبد الله باتها وحول مصح علي وحود يوم مصح يقول تصل على مصح ومصح ارنت لباد المهم كا وحي هذا قفك اني سو بخصدا ما سو علينو قفك انك نغا سو بخصدنا waa noo soo celinaysiin okay nigu wuxuu aqbalay wuxuu yiri ninkii abu umar anaqbalu daniyata fi diinina مدينتي بان اقبل الله ان لو غوميس يا رسول الله ألسنا على الحق بلا أليسوا على الباطل بلا ما حيرسا حوري الهي بنو غاري سوق ودغال استراتيجي waxay dhadan culimadu marka imika baareen ninka la dhado doctor waa wadax khafar oo jaziira xukumi jira oo imika istiraatiijiyada ku takhasusay wuxuu yiri waxay ku guuleysteen qurayshi al-harb at-taktiki nabiguna wuxuu ku guuleystay al-harb al-istiraatiiji تنازل عن بعض الامور لإمارتي لينجح في مدينة أخرى لا بشيء وهاي كو قريش وين اعتراف النبي يقول خذي صلى الله عليه وسلم اعتراف بقريش كيف بدي إن أبودهم على اعتراف لبا وحال سي فرصة نشر الدعوة إن دعوة دي لفظية والاتصال بالناس ذكر الله حلو وحاول بحي حصل البنا الاتصال بعموم الناس ذاتكي أردن بالا حليري برشدي بالا إسعاركين marka 1700 baa gashay maalintaas oo Xuduubiya joogtay 1400 baan u jeedaa 10 baan ay matahay xashka 2 sano gudaheed musaddex sano xashki ونبي حجري 10000 فتح مكة ورجع فتح مكة حشكينا 100,000 بجوتي اوكي يقول استمرار استراتيجيا نبي يقول معقول وتنازلي التنازل وفن وارث وعلمي ربطه في المفاوضات marka dadka la niqaashay yaa barta arinta ugu dambaysa wax weeyaan siyaasadda marka uu ninka dawladdu ka shaqeynayo kama shaqeeyo fanul misaaliyaad maxaa jeceshahay maxaa ku fiican wuxuu ka shaqeeyaa fanul mumkin maxaa ku suurta gali karaya man mumkin uu ficlu maxaa sameyn karnaa maanta halkeen ka bixi karnaa iyo eeda okay imika waxaan u imanayaa aaway halka ayaa gacanta ku haya anigu waxaan arkayaa dadka adduunka jooga oo dhan waxaan u bixinayaa wax yamlikuuna duquud ضغط بحياة صدايان قف قراته يجعل تنبض ما أنت كجرتا قف كوايو ومصبي حويا مدحوينها الصومالي الآن مستر مصبي أي كجرت باكله بحاول هذا مدحوينها الصومالي هرت يسقى سكو يقانا شيء بيساو يقانا أردت صدق هذا منك واحد مدحوينها الصومالي أو يقانا حسن شيخ مدحوينها الصومالي الآن وحاول يقانا مدح الدون كصومالي صومالي بعد مدحوينها الصومالي الآن marka madaxweynaha Soomaaliland ee ummadda Soomaaliland ay waliba doorasho ku helay oo cod inta dooratay ay bixiyeen waxaan ku leenahay laba shay baa ku furan maanta ko labada shay waxay ku siinayaan inaad taariikhda gashid amba inaad ka baxdid ila abad dadka kula jooga runku ma shaqeeyaan ana waxba ka amar jeeni la gurta ku shaqeeyaa ila abad taariikhda waa gali ila abad taariikhda waa ka bixid labada shay uu sameeyaa الشيء الأول وحويان عيدا ماذا كسوقات ضدك الواحد كلين عيدك نجاقات يكي بقول بالإجماع ما حد واحد مركع عيدك إيش يا شيخ لماذا؟ حد واحد يمشي عيدك للمسلمات هاي للصوماليات هاي وضيبات ودوينات خلاص قبر يبقى كهذا إذا محاربتها كل أخواني ما فاتنا اللي قودين وذاك يسال العبدين وذاك يسال حلا كسر والله ما حد عايا هيبدا الدولة بابا عيسى وهل نحن اصلا جيبوتي صوماليا ما هيبدا لنا هل لدينا هيبه؟ ان الشركه كده عي ايطاليانيا يا مدحوينها صوماليا تاعي حسن شيخ مركني لعبت النيجيريا اللي سي يلعبت سيغا لو سي غرغار كسو ايغا بركه فكره
soo dhaweynahayna eeg ayaa nagu hor yimaada adduunka mowqiceenu muxuu yahay sidoo looga sheekeeyaa waxaa mandiqadeena dhan waxaa loo haystaa waxaa laga hadlayo ilaalinta badda cas iyo ciidamada gaalada u yimaadaan barbara imanayaan maraykanka maxay ka soo doonayaan barbara may jeceliin may danuhu imanayaan jabuuti bay joogaan danuhu u joogaan anta lasta bishay cindahum miisaan alquwa kuma jirtid marka inaa isla waala maaha marka maxaa laga rabaa adiga waxaa laga rabaa shaksi waxaa tahay wadaniya soomaaliya ciidamada ka soo qaad wallahi waa xalka ugu fiican waa tanaasul استراتيجي وقوة طويلة تاريخنا أرنت اللباد إلا جاهي ومحي إلا جاربه إن مركا أتراهدي هلا الشراء شركة وضيال إيه وضيال باقالية معها شركة وعقوبة هي إني جلان تسياسة يقعنا كو صدح قرو وضياشا ولو يقعنا قرادة استرادة وحمق سلاطين تكو لبو علماء يقوياك وحبلت سوا هل سوا صدح بيع مشترك رجع دنت كشقيستاي يا مصالح ذا ايغو عشان مركي دولة مريكا الاساسي مريكا waxaa sameeyay waxa afar qolo akhriya taariikhda الدولة الامريكيه يا سمي afar qolo sameeyay islaam kale kuwa ma sameeyay waxa sameeyay قيادات وطنيه قيادات سياسيه قيادات ماليه هي قيادات مجتمعيه ودينيه انت ما سمعت هجاميال ليدرشيب سياسات كو وطني كو العقله رجل العقل لها iyo ragga maxaa sameeyay maaragtay diinta iyo bulshada amro kuwaas baa sameeyay way danaysteen marka bay danahooda ku saleysiyeen ana xaga maxaa looga baahan yahay inaad dadka intaas la soo xulo oo labada jaanib baraali ay ka inta la soo xalo in la yiraahdo heshiis hala keeno iyada oo heshiisku uu ku dhacay laba hoostooda kow taxta daqdi rasaasta ku dulta le heshiiska gal la ma heshiiskaas labo كمان دعيسو تحت ضغط دولة السودان اللي قاعد فيها وان كان قاعدة ولو عليه تصير معنا منه وبها انت هاي بالهدوء يقدروا قاعدين ذاك أنا وان تشاني تقول المصير كذا أدور أي صوت ردت كذا وان فريسرنا أي مكان أوروبا الصومالية ده وحنكش كيسرنا مصير كنا جيس أفريقيا مصير كنا الصومالية مصير كنا دول كنا مصير كنا دنيهنا وحنكش كيسرنا محاين هم يرسن كيف أنا أوصلنا مركا لكن أريد أياك عن تقوية لمبر 1 ولمبر الأخير تذكر هو مساعدين ومهيئين واحد يرانا يروكا مدحوين مصبيح كأنت يسوي جلتها دولة أفريقيا كنا والدولة قف حكموا ويان دولة كوهي حكوان ماهن وحنو مرنا إلى دفاعتين إسفهني إلهي وحن كرجينيا إنه إلى قدم مايو فتنة داس oo dagaalkaas inaga dhamaado fidnad tadumbar fidnadu dadku waxay dhahdaan fitna baa laga sheegayaa fidnadu waxay leedahay reer galbeedku iyo waddanada bislaaday sidii saxaabada iyo laba shay baa la sameeyaa wiqaaya iyo mucaalaja fidnada lagama cabsoodo anagu fidnada waa laga cabsiiyey fidnada waa laga hortagaa intayna dhicin hadday dhacdana waa la daweeyaa nin xisbi soo wada oo somaliland ayaan ka mid ka dhigay Soomaaliya cabaaqiradu fidnada way ka hortagaan dadka musaqafiintuna fidnadu markay dhacday daweeyaan waxaan u baahanahay abaaqiran lagama maqno dad musaqafiin oo aqooyahana hadday dhacdayna daweynteedii waan haynaa waxa dhacana uu dhici karaa mar labaad waa inaan barno koortigeega marka aniga waxa ila tahay ina saayelo waa ila tahay weeyaan waa muudadeyda weeyaan waa aragtideyda weeyaan waa sida aan isleeyahay siday wax ku soconayaan waa sidaas weeyaan noloshuna waxay u baahan tahay in lagu sheego laga sheego dumaashi ninka xishooday kama dhalo asalaamu calaykum waraxmat ullah